السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسو dhawaada mar kale iyo analysinkii suuqa ama usbuuca aynu analyse garin jiray usbuuca analyse gareyno haddaynu eegno bilowga usbuuca ama xagga uu jihaysanayo waxaanu ka bilaabi doonaa DXY-ga insha Allah taala. DXY-ga waxaan ka rajaynaynaa sidiisaas inuu awood u sii lahaado oo horey noogu sii socdo insha Allah taala, isagoo meeshiisan kor inooga sii socon doona saynu rajaynayno ama rajadeenu ay tahay soo u samaysto new high soo u samaysto oo yani uptrendkiisa uu sii socdo ayaan DXY ka rajaynaynaa oo uu kor inoogu sii socdo insha Allah taala ilaa inta uu samaysanayo new high waanu sii haysanaa lacaga DXY ku dhahday euro USD wixii la mid ah ilaa inta ka samaysanayo high-ga. Okay, lacagta ku xigta haddaynu eegno oo iyaduna euro USD ah waa opposite-ka DXY-ga ama euro dollar index-ka, iyana sidoo kale waxaan ka rajaynaynaa in ay hoosteeda inoogu sii socon doonto insha Allah taala haddii la yidhaahdo oo ilaa iyo iyadna samaysan doonto new low ama low cusub inay samaysan doonto iyadana ka rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo. waana wadeeganaa dad badan ayaa trade ku jira way haafideen ma jeclahay usbuucii hore meelahaas ay nooga soo bilaabantay ciddii kasoo faa'iidaystay intaasoo bib markaa hadda way kala xidheen dadka lacagooda ma jeclahay markaas iminkana waxaan ka rajaynaynaa waxoogaa yar pullback yar iyo corruption soo ka baadina continuation ay kusii socoto waa euro USD. haddaynu euro USD soo dhaafno AUD/JPY oo ah iyadoo lacag fursado macaan leh ayay noogu xigtaa. AUD/JPY haddaynu eegno iyadana waa suuq uptrend cusub bilowday iminkana aynu ka rajaynayno in uu uptrendkiisa noogu sii socon doono oo wax sal ah qaadan mayno ilaa intaynu ka arkano clear pullback noqonaysa. Okay, iyadana waxaan ka rajaynaynaa haddii la yidhaahdo iyadna inay ilaa iyo eerooyinkan inoo timaado ayaan rajaynaynaa saynu usbuuca bartankiisa ama xilligiisa dambe aynu ugu faa'iidaysano fursadda buyga. taasna waxay ahayd AUD/JPY. waayahay haddaynu soo dhaafno kuwan lacag aadka u qiimaha badnaa aynu suganay lacagtana waa GBP CHF iyana waa lacag aad iyo aad u qurux badan. iminka lacagtani marxaladda ay marayso aad bay fursad uga dhowdahay halkan iyo rajayna waxoogaa inay soo gaadho anyway meelahan kadibna ay ku laabato last candle of mitigation nabasibo yaqaanay ama order block ka bacdina ilaa iyo intan ay noo soo buuxiso ama new low kale ayna siiso. halkan waxay nooga muuqataa haddii noo fiirsano halkan waxay nooga muuqanaysaa in suuqu head and shoulder yar oo aan si fiican u muuqan laakiin inta traderada ay si fiican u arki karaan ayaa halka ka muuqda. kaas baan sababi doona insha Allah taala in hoos raacno suuqan kaasna way ugu fursadda dhow leh usbuuca gudihiisa intaan ku jirno waana GBP CHF. haddii soo dhaafno GBP CHF waxaynu ugu xigtaa lacagta la yiraahdo NZD/JPY iyadana waa lacag aad iyo aad u qiimo badan muddo sare ku soo socotay haddana in ay buy inoo aado aan raadinayno oo kala wareegtay sidaas la mid ah iyana waxaynu ka rajaynaynaa anyway in meelahan inoo timaado ka bacdina aynu meelahan suuqa ka raacno oo aynu u raacno for the buy ma ahan sell buy aynu la iskaraynana oo buy aynu raacana insha Allah taala. xitaa hadduu imbalance soo buuxiyo inuu fursadda buy-ga ma sugnaa oo fursad kale ma sugno ilaa hadduu imbalance soo buuxiyo dhexe fursaddan waa buy ma sugi doona insha Allah taala. haddaynu soo dhaafno lacagta NZD/JPY waxay ku xigtaa lacagta euro/JPY oo iyadana lacag aad u wanaagsan ah muddo dhow iyaduna kala wareegtay
lacagta euro JPY iyana haddaynu saadaashano waxaanu rajeynaynaa in anyway meelahan iyana ay noo timaado kabacdina fursadda buyga ah fursad buyga aynu ka faa'iideysana iyadana oo aynu qaadano insha Allah ta'ala iyadana anyway in meelaha ay nooga kacdo ayaan rajeynaynaa inaga oo ilaashana liquidity-yada la soo cuno ama la soo dhaafo la soo jabsado okay haddaynu hore uga socono taasna waa euro JPY 4 buy baan rajeynaa anyway meelaha marka timaado way ilaashan doontaan insha Allah ta'ala hadii ilaahay dhaahdo horaha nooga socono waxay noogu xigtaa lacagta la yiraahdo CAD JPY iyaduna down trend clear ah wali ku socota oo ayna suuqeegu wali isbedelin oo low high ku socoto hadda lacagtan iyada isbuuc hore meelahan ka soo naskareenay anyway halkay noo gaadhay laakiin iyadan gaadhin soo dhaqaaqday imikii haatan waxaan rajeynaynaa in lacagtani anyway meelahan timaado kabacdina ay sell inoogu sii socoto lacagta oo iyadu wali down trendkeegi ma aysan bedelin lacagtaasna intaas aan ka rajeynaa iyadana insha Allah ta'ala anyway meelahan inay nooga dhaqaaqdo ayaan eegnaa markaynu aragno confirmation ina siinaya inay suuq contribution ku sii soconayo oo correction yar qurux badan in ka helo way sii qaadanaa iyadana intii dad ay ku jirtay waxay ka haysaa maalinta xaga suuq yar raftay laakiin war la soo raacay ilaa anyway waxay ka hayaan 127 bib waxyaabo 127 bib ay ka hayaan dadku intooda inkastoo xogaa ku yar rafatay way yar faanayno si ku kaliya dhaqaaqin oo mudooyinka la soo dhaafay isbuucaas oo haaskaas suuq waxa mid jam ah haddana aad imika fursad fiican ay xidhamay aynu oran karnaa way lacagtan waxay taa waa USD CAD lacagta USD CAD waxaanu iyadana analyze kareynaa in isbuuci hore halkan ay ka kacdo isla meeshaan sheegnay ay ka kacday waxba hoos ma dhaafin bartii aynu sheegnay ay ka kacday waxayna dhaqaaqday ilaa 200 bps ba dhaqaaqday waa lacag muddo halka ku meereysanaysay waxoogaa meelaha inta la jecel laga qaatay laakiin dib ugu soo baxday imikana meel wanaagsan marasa lacagtana still waxaynu u rajeynaynaa inay buygeeda ku sii socoto aynu rajeynaynaa insha Allah ta'ala oo ayna dib u soo laabanin lacagtaasi haddii waxoogaa corruption yar samayso waxaan kan kala oo suurtagal in corruption yar waxaan ka sanaysiiso kabacdina si direct iyo dhaqaaqdo insha Allah ta'ala haddii soo dhaafno lacagta USD CAD waxa ku xigta AUD USD iyadoo lacag ah muddo dhaweyd buy cusub samaysatay lacagtan waxaan ka rajeynayaa iyana up trend oo wax down trend ah kama rajeynayno hadda lacagtan waxoogay inay hoos inoogu soo socoto ayaan rajeynaynaa oo anyway meelaha inoo timaado kabacdina meelahan aan ka qaadano lacagtaasi for the buy or for the new high inay noo samaysatay rajeynaynaa insha Allah ta'ala okay lacagtaasina iyana intaas in ka rajeynaa waa USD oo iyadana for buy ah insha Allah ku dhaxayn doona okay adin ka soo gudubno waxaynu soo gudbanaa NZD USD wali iyada wax dhaqaaqa ma aysan isbuuc horseyn ka rajeynaa ay wali tahay iyadana sidii si lamida waynu iska suganaa NZD USD anyway in meelaha soo gaadhay rajeynaa oo USD NZD da waa uu soo dhaqaajin leeyahay maadaama uu suuq si fiican oo qurux badan kula wareegay wax soo dhaqaajay wali lama hayo taalla uma haya u deegas way ku soo dhaqaajayo maxaan ku dhahay NZD da sastrada NZD anyway meelahan ku suganaa NZD USD kabacdina for the buy meelahan ay fursadeena ka raadsan doona insha Allah ta'ala taasna waa NZD USD haddii soo dhaafnay NZD USD waxa ku xigta lacagta euro JPY iyadoo tabta aan sheegnay ay noo noqotay corruption ka yar markaan aragnay oo arkayna suuq si fiican u socday anyway meelahaas ka soo qaadanay lacagtii noogu wanaagsaneed ayay ahayd isbuucyada la soo dhaafay imikana waxaan ka rajeynaynaa in suuqani uu selkiisa noogu sii socdo suuqani selkiisa noogu sii socdo anyway meelahan ku noqoto lacagtaasi for the sell quickly aynu qaadan doonaa insha Allah ta'ala wana lacaga ugu soo horeeya ayaan ka faa'iideysan doonaa insha Allah ta'ala sayna rajeynayno
waa lacag qurux badan oo break of structure noo sameysay waxyaalo badan oo ku jiray anyway kanba ka dhig way noo dhamaystirtay marka waxaan sugaynaa kaliya waa order block asoo loogu noqdo ama imbalance kaas oo soo buuxiyo kadibna loogu noqdo order block ka bacdina si direct yaanu qaadano intaas oo dhaqaaqda in ka badan inaan sii qaadano okay waxay noogu xigta lacagta JPY oo ah lacagta poundka iyo yen-kii iyaduna muddo ay ku soo socotay down train oo waa lacag still down train ah mar ay isku dayday anyway marahan jihada ka bedelato laakiin waa awood weeday una bedelan kari weeday wala soo cadaadiyay JPY yen-ku aad ayuu awood weyn u leeyahay saadaradeed isoo JPY-guna awood leh ayuu haddana ka sii awood badnaa isagu iyada hadda waxaan ka rajaynaynaa iyana in anyway meelahan iyadana inoo timaado ka bacdina corruption yar ayna siiso iyana aynu saa ku sii qaadano for sell aynu qaadano aynu rajaynaynaa waxaan ku leeyahay lacagta jijayna insha Allah tacaala waan lacagaha ugu fursadaha macaan ayaan isleeyahay isbuucaan ku guda jirno okay halkaas ayaynu kusoo gabaynaynaa aad iyo aad ayaan mahadsantihiin insha Allah tacaala اسبوع